iyadoo uu socdo gurmadka loo samaynayo dadka abaaruhu saameeyeen ee gobolada bariga Somaliland ayaa maanta Suldaan Sheekh Yuusuf Cabdi Cawad oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka Somaliland uu deeq raashin u qaybiyay 20 qoys oo ka soo barakacay deegaanada abaartu ku habsatay isla markaana ay ka dhamaadeen xoolihii ay dhaqan jireen ee lafdhabarta u ahaa noloshooda waxaana gargaarkaasi raashinka soo diray haweeney muxsinada oo ka soo jeeda magaalada Burco taasoo codsatay inaan la sheegin magaceeda kuna nool magaalada Colin ee dalka Denmark waxaana ka hadlay goobta Suldaan Sheekh Yuusuf Cabdi Cawad oo wakiil ka ahaa deeqda raashinka waxaanu ku baaqay in ummadda dhibaataysan loo gurmado sidoo kale qaar ka mid ah qoysaskii loo qaybiyay raashinka gargaarka ayaa ka mahad celiyay una duceeyay shakhsiyadda muxsinada ee gurmadka u fidisay dad barakacayaal oo abaartu ay miyiga ka soo barakaysay oo ku soo ururay magaalada Burco koonayaasheeda ayaa waxaan u qaybinaynaa lacag ay soo dirtay gabadh reer Burco ah islaan muxsinada oo degan dalka Denmark magaalada Colin magaceeda in la sheego way diiday mar horena lacag ay ugu soo hagaajiso masaajidka saalixiyada markii la dhisayay maantana lacag $1,000 ay soo dirtay waxay tiri dadka dhibaataysan ee abaartu harakaysay iga gaarsi lacagtii ay soo dirtay islaantaas muxsinada ah reer Burco inaanu halkan ugu qaybinayno maanta 20 qoys oo raashinkii lagu siinayo 5 nooc raashina qoyskiiba uu qaadanayo sonkor iyo daqiiq iyo bariis iyo baasto iyo saliid 5 item ayaa qoyskiiba qaadanaya waa 20 qoys islaanta waa u ducaynana ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigeeda ha dhaafo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa ay bixisay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibaatooyinka adduunyada iyo kuwa aakhiraba ilaahay ha kaga badbaadiyo subxaanahu wa ta'ala islaantaasi oo diiday magaceeda waxay tiri waxaan TV-ga codsaday in dadku ku daydaan marka in lagu daydo islaam baa kaligeed 20 qoys dad iyo dunyaba khatar baa lagu jiraa cudurro dilaacay biyihii baa dhamaaday amina salaad diiriye baa la yiraahdaa waxaan u dhashay soonaha ceelaf weyn waxaan haysataa abaar kulul oo la yiraahdo magaceeda oo hiya islaantana raashinkii waa ka guddoonay waxaan Xabiiba Yuusuf Xirsi ayaa la yiraahdaa ilaahay baan mar hore u mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan u mahadnaqaynaa culimada islaanta la sheegayo ilaahay waxaan u weydiinaynaa insha Allah billahi kariim in aakhirana ilaahay jannada ku geeyo ifka inta joogsan xasanaad balaan ilaahay siiyo Ali Daahir Maxamed Boos TV Universal Burco.